waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waagi baryaba awbax laga waraabsho waagi baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno guul wacan cadowka waabto nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago hakuwaaro waadankeenu guul wacan cadowka waabto nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وناكسن قيارتنا داوانيسا إذا لهانتينبا ميل والبا جوكتاني سي والبا نود داوانيسان كسو دوادا برنامج قارة oo aynu ku faaqidi doono doorka aqooyahanka Soomaaliyeed oo ku leeyahay dib u dhiska dalka. barnaamijka daawadayaal waxa ka qayb qaadan doona oo martida barnaamijka uu yahay Ustaad Cabduqaadir Maxamed Cusmaan Cabdi Boqor oo kamid ah macallimiinta jaamacadda Al-Madina International University ee wadanka Malaysia. Ustaad Cabduqaadir Boqor waxa uu waxbarashadiisa ama heerkiisa waxbarasho ee jaamacadeed uu ku soo qaatay wadanka Pakistan gaar ahaan magaalada ku caanbaxday ganacsiga ee Karachi wuxuuna ku soo takhasusay maamulka iyo dhaqaalaha wuxuuna haatan jaamacadda Al-Madina ka dhigaa facultyga ama qaybta maamulka iyo dhaqaalaha. barnaamijka ayuu maanta marti inoogu yahay. sidoo kale waxaa xusid mudan oo barnaamijka ka qayb qaadan doona ama isku dubridka barnaamijka isa kaashaday TV-ga Somali Channel iyo shabakada caalamiga ee Raja News. haddaba barnaamijka aynu gudagali doonaa martida barnaamijka aan ku soo dhaweeyo Ustaad Cabduqaadir Cusmaan Cabduqaadir Boqor ku soo dhawaaw telefishinka caalamiga Somali Channel iyo website-ka Raja News iyo barnaamijkan gaarka ah ee aynu ku faaqideyno dib u dhiska dalka iyo qaabka ay dhalinyarada uga qayb qaadan karaan. wariye Axmed Abubakar Azhari iyo Somali Channel xaqiiqdii aad iyo aad kaga mahad celinaya fursada qaaliga ah siiseen in mowduucan muhiimka ah aan ummadeena qaaliga Soomaaliyeed kala hadlo. waa fursad aad iyo aad u qiimo badan mowduuc sidoo kale aad iyo aad u muhiim ah waana ku mahadsantiin fursada intaas leeg. aad ayaad u mahadsantahay Ustaad Cabduqaadir Maxamed Cusmaan Cabdi Boqor sida qiimaha badan ee aad naga aqbashay casuumaadii aan kugu fidinay stuudiyaha TV-ga Somali Channel oo ku leeyahay wadanka Malaysia ee sida aad naga qayb qaadanayso barnaamijkan aynu ugu talagalnay doorka aqoon-yahanada Soomaaliyeed iyo aragtidooda ku aadan sida ay uga qayb qaadan karaan dhibaatooyinka dalka ka jira iyo sida ay xalkoodu yahay. ugu horreyn su'aasha aan ku weydiinayo Ustaad waxay tahay sidee loo heli karaa aqoon-yahano Soomaaliyeed oo tayeesan kana qayb qaata samata bixinta iyo kobcinta dalkii hooyo maadaama aynu ognahay muddo ka badan 21 sano inuu dalku ku jiray foodo iyo nidaam darro. waxaana ognahay in 20ka bisha Agoosto ee sanadkan wixii ka dambeeyay dawlad Soomaaliya ka bedesha marxaladda iminka ay marayso in aan filayno in dalkii ay ka hirgasho. marka doorka aqoon-yahanada uga furan maxay tahay ka qayb qaadashada iyo kobcinta iyo dhisidda wadanka. wariye Axmed Abubakar Azhari aad iyo aad u hasan tahay xaqiiqdii waa su'aal aad iyo aad u qiimo badan oo qaali ah. sidee lagu heli karaa dad tayo leh oo ma aragtay de wadankii dib u dhiskiisa iyo horumarkiisa qayb weyn ka qaata. waxaa lagu heli karaa waxaa jirta concept la yiraahdo staffing ku jirta maadooyinka lagu dhigo maalan managementiga iyo human resource management intaba dhahaysa putting the right people in the right places oo ah in la dhigo
dadka ku habboon meesha ay ku habboon yihiin Soomaaliya marka nalagama weynin dad academics ah nalagama weynin dad khibrad leh aqoon leh ilaa iyo maaragtay shahaadooyinka kala duwan ee jaamacadeed leh oo haysta mushkiladu waxay ka taaganta oo kaliya meeshii la xuli lahaa dad ku habboon aqoonteeda iyo kartideeda iyo experience-geeda leh ayaan waxa la xulaya oo kaliya dad ama ayaga meesha jecel oo afminshaarnimo iyo hababnimo meesha isku geeyno ku qasbanaya ama dadka marka hoggaanka haya ay jecel yihiin marka just qofkaan jecelahay darteed ayaa meel lagu geenaya ama ma aragtay asiga jecel wixii qasbaday laakiin hadii la dhihi lahaa war qofka meesha u qalmo aan geeyno Soomaali ummadeena lagama weynin dal iyo dibad inta joogtaba waxa la sameyn karaa iyadoo aan ma aragtay la dardareynin wixii ummadda Soomaali ay ku heshiisay ayaa waxa la dhihi karaa dadkii wax noo keenaya ha inoo keenaano dad quality ga leh shahaada noocaada ila darajada noocaasa experience noocaas ah oo conditions leh hadii marka wax xoog la saaraya ay tahay qofkan is he qualified enough oo qofkan qof u qalmama yahay hadii xoog taa la saarayo waa la heli karaa dal idibada maanta ummadeen waxbay baratay dad wadaniyad leh wadankii maarta uu dhibaato ma xanuun ay ku hayso dadaabka amanka la leeyahay ilaa 1 milyan ku half a million ku jira 20 sano rafaadka dadka marka muuqaalka naxdinta leh dadka naxaya wadaniyadii leh aqoontii leh kartidii leh nagama weynin laakiin mushkiladu waxa waay waa nin jeclaysi maxaa yiraahdaa ii sheeg sad bursi ninkan aniga watay laga hor wareego waxba yuusan aqoonin aniga meesha ii joogaya wax la mid ah waxaan rajeynayaa sida hadda ay ku socoto xaaladda in maaragtay dad aqoon leh ay hoggaanka qaban doonaan dadka aqoonta leh insha Allah taala ay conditions adag u dejin doonaan si meesha u yimaadaan dad quality leh biidin Allah taala وهاجا أستاذ dalku wuxuu marayaa xilli kala guur ah siyaasadda ay dawladda ku dhaqanta ama Soomaaliya siyaasadda looga dhaqmano waxay tahay 4.5 ma kula muuqataa in la joogo xilligii laga gudbi lahaa 4.5 ka loona gudbi lahaa sida loo heli karo ama lagu raadin karo aqoon-yahan tayeysan oo dalka wax ka qaban kara xaaladda uu marayo wariya Zari waa su'aal muhiim ah xaqiiqdiina dabcan meesha ku jirta xaqiiqdii 4.5 ma aha wax aan aaminsanahay ama ummadda Soomaaliyeed ba ay guud ahaan ama aaminsantahay ama ay ku faraxsantahay ama ku qanacsantahay toona laakiin dadkii shirkii cartay iyo ku sameeyay waxay yiraahdaan daruuri waxba keenay su'aasha ma la jooga waqtigii laga gudbi lahaa 4.5 si loo helo aqoon-yahano wadankii wax u tari kara ma aragtay ka badbaadin kara marxalad uu ku jiro xaqiiqdii maxaa yeelay wax walbaba waxay ka bilowdaan hoggaan hadii la helo leadership quality leh ee maaragtay ka go'an tahay in 4.5 ka ummad Soomaaliyeed ee walaalaheen ah ee qayb ku leh wadankii 0.5 in lagu tilmaamo ay dhibayso hoggaan noocaas hadii la helo waa aaminsanahay waa laga gudbi karaa xaqiiqdana waxa way hadda naftirkeeda dadka loo sheegay in 4.5 lagu dhaqmo maahane marka aad fiiriso dawladda iyo ma aragtay nidaamka guud ahaan 4.5 meel kasta lagu dhaqo safaaradaha hadii aad fiiriso kale qonsuliinta hadii aad fiiriso kale ixtaa shaqaalaha safaaradaha ka shaqeeya oo kale xarumaha dawladda guud ahaan marka aad fiiriso kale 4.5 ka waa si marka la fiiriyo oo kacsi la dhigi kara ama qowda maqashay waxba ha u qaban laakiin ma aaminsan tahay ma aaminsan ma laga gudbi karaa waa laga gudbi karaa maxay waxay u baahan tahay oo kaliya in la helo hoggaan ay dhibayso qabyaalada la isku shaabadeynayo iyo 0.5 ka quursiga ah ay dhibayso oo wadani dhab ah ummadda in la islaaxiyo la wanaajiyo oo midnimo iyo isjacayl in la tusay ka go'anta hadii la helo absolutely waa laga gudbi karaa waana aaminsanahay dad quality ga leh inay naga buuxaan biidin Allah taala وهاجاك داود يا لولي waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkii aynu uga hadlaynay doorka aqoon-yahanada Soomaaliyeed ay ku leeyihiin dib u dhiska dalka Ustaad Cabdi Boqor hadaan u soo laabano su'aalaheena maxaad u maleynaysaa in dawlad waliba oo la dhiso ay uga bixi laadahay isqabqabsi isku shaandeen iyo eriid wasiirada dawladda maxayna tahay sababta rasmiga ay ka dambaysa in mar waliba ama dawlad waliba la dhiso la bedelo wasiirada khilaaf uusan dhamaanin maxaa u maleynaysaa fikir ahaan
xaqiiqdii waa horta waa su'aal muhiim ah xaqiiqdii meeshana ku jirta waana dhibaatooyinka waaweyn ay ka mid tahay ee haysta dawlad walba ee ummadda Soomaaliyeed loo dhiso khaasatan ummadda 20 sano iyo dhowr ku jirtay burbur iyo dagaal ee u baahan wax alle leh rescue gareeya ama ka badbaadiya marxaladda xanuunka badan dadkii marka ka badbaadin lahaa hadii ay waxa ka bixi waayaan isqa qabsi isku shaandeen bedelid iyo wax la mida waa nasiib dar inteeda leey waxay la mid tahay ninkii reer u dhaaniyay ee dhaankii ummadda ay sugayeen ee dhowr maalmood isagoo ka sii maqan ummadina ay u dhimanayso meesh la soo istaagaba inaan tambiye idinkeen iska daayay hadda dhaankii aad iga lumay ninka reer u dhaanshay dadku dhowrayeen oorki dhaxda uga lumay waa xigmad murta Soomaaliyeed waa xaqiiqdi maxaa keena waxaan dhihi karnaa laba arin keenta marka koobaad waa xulasho saxsan la'aante maxaa yeelay qof marka meel loo dhiibayo waa in qofka meesha loo dhiibay uu ku haboon yahay qofkan takhasuskiisa ah khibradu u leeyahay meesha wuxuu leeyahay wax la yiraahdo track record oo qofkan alla ilahay waxaan waa wuxuu soona bartay kana soo shaqeeyay wax qabadkiisina la hayo marka qofka meesha uu diyaarsan yahay from the first day meesha la geeyo ama maalinta uu horeysay meesha la geeyo qofka meesha waxbu ka qaban kara waxbu bedeli kara laakiin qof hadii la geeyo la wala wada wixii afarta maalin joogo inuu wax qaso ama wax ku babarto ayay noqonaysaa inta wax ku babaranayaan la bedelay sida caadada ay tahay marka meeshii saa wax lagu xulan lahaa ayaa nasiib darro sida muuqata waxa wax lagu xulaya oo kaliya teamkan aniga wata waa la keenay waxa laga yaabaa in waxyaalo kale oo sheegitaankooda afka aysan ku qurxoonayn marka problemka koobaad waa dhinaca xulashada dhinaca labaadna waxaan isleeyahay waaba qorshe shisheeye oo loogu talagalay in aysan waxba inoo xasilinba maxaa yeelay haddii qof marka hore la xusho ee alla ilaa meesha ku haboonaa la geeyo wasaaradii ku haboonaa la geeyo ee la siiyo waqti munaasib oo ku filan waxa dhici karta in qofka uu u helo waqti uu ku fikiro qorshihii wasaaradda uu ku dajiyo teamkii alla la shaqeyn lahaa oo naftirkiisa sii xusho qof walba meesha ku haboonaa geeyo hadhow marka la helo team quality leh wasaarad qorshe leh long term iyo short term isugu jira ama qorshe fog iyo qorshe dhow aan iraahdee hadhow marka waxba la qaban karaa laakiin nasiib darro hadii maalinta soo gashaba kursiga marka aad toosisaba hadii la yiraahdo odagiyo hor u soco nasiib darro wax ma la qaban karo waa problemka koowaad ee leedahay problemka koowaad aan ka dhaxgale ayaa waxay tahay waxay abuuraysaa sidoo kale wax la yiraahdo insecurity qofkiiba in uu alla ilaahay dareemo in aan loo soconinba in wax la qabtee afarta maalin uu joogo ma aragtay sida gaarka uga faa'iideysan karo inuu uga faa'iideysto oo hadhow marka waxay noqonaysaa qofka meel loo dhibo xalal bariyaha laga qaadi doonaaye maxad ma aragtay sudaalinaysa ee wax la mid ah oo mushkilad effectigeeda xaqiiqdii aad u dhib badan yahay marka waxaan dhihi karaa waa wax noolagu talagalay dhinac shisheeye ka socda wax la bedelayo ninka ma aragtay laga yaabo in go'aanada ama marada qaarkood ay adisaabo nooga imaanayaan wallahu a'lam waa tahay ustaad haddii aan ka dhaxgalo kula muuqataa in aqoon-yahanada naftigooda ay isbidaan ama ismoodeen wax ayagu aysan ahayn halka kuwa qaarkood aysan dalki tagin kuwa dalki tagay oo isirba xaaladda jirta ka qayb qaado markii ay fadhiisteen kursiga ama xafiiskii ay rabeen ay heleen in ay la soo baxeen wajiyo cusub macna oo ay sababto markaas in ay isku dhacaan maamulkii ama madaxdii dawladda halkaasna ay ka dhalato in la bedelo markaas wasiiradii ama dadkii markaas meesha yimid والله أنا ما آمن سني أقوياء وحسن اسمه ما آمن سني وآمن سنة ماشي إنه جرو حول الشدر حقيقة وحولنا نفتر كود وحكي خالدين وهاي القف كي أقونت لها أقل مي الله يله عن سيد عن هروش جني لها خبرتي أقونتي كرتدي هستوريس والله يله وشيريو performance وحقبت قف كامر كي ماشي لود يبو si loogu talagalay uu qabanaya laakiin mushkilada ayaa waxay tahay marka hore ayaan xaqiiqdii si dhab ah oo macquul ah oo wadaniyad iyo aqoon iyo karti iyo khibrad ku dhisan tahay ayaan dadkii marka hore loo xulanaynin
waxaan aaminsanahay problemku inuu meesha ka socdo xaqiiqdii iyo sidaan ku sheegaba barnaamij noolu tala galay oo waxaan in maalba wax la bedelo si alla wixii aysan marba aysan u caga dhiganin stable aysan u noqonin aan loo helin wasaarada qorshe fog iyo mid dawla inta marka I think problemku inuu dhinacaas yahay Ustaad Cabdi Boqor haddaan ku weydiiyo su-aasha kale maxaa loo leeyahay madaxweyne ra'iisul wasaare gudoomiye baarlamaan oo ay dhex marto wada shaqeyn wanaagsan maxaana sababaya isku dhacan tirada badan ee mar walba ku soo cusboonaada masraxa siyaasadeed iyo hanaqaadka dawladda waa su'aal muhiim ah xaqiiqdii meeshan ku jirta kana mid ah waxyaalaha aan u baahannahay ka ummad Soomaaliyeed aan ka dawlad ahaan in aan horta marka hore ka gudbo maxaa yeelay haddii guri islaantii odagiiba ay dagaashan yihiin way adag tahay in ma aragtay wax horumarayo wax sameeyo adduunkan horumar waxa lagu gaaraa in la wada shaqeeyo iyo unity iyo in ma aragtay wax la wada dhiso waxaan isleeyahay wax ku soo goobi karaa saddex arrin ayaa sabab u ah isku dhaca joogtada ah waxaad fiirisaa مثلا tii Cabdi Qaasim waxaa fiirisaa مثلا tii madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf iyo tii tan hadda jirta ee maaragtay Sheekh Shariif waxaad arkaysaa inta badan waxaa isku dhacaya madaxweynihii ra'iisul wasaarihii iyo gudoomiyihii baarlamaanka inta badan waxaa la dhihi karaa marka waxa keenay isku dhacaan waa iyadoo qof kastaba aanu ku ekaanaynin xadkii title-kiisa iyo awoodiisa ay ahayd oo ah micnaha awood isla qabsashadii haddii aan maaragtay qof walbaba si ay ku jirto professionalism u dhihi lahaa okay aniga waa xadkii awoodda lagu talagalo waa intaa uma dhaafayo wax isku dhac dabcan lama arkin mushkilada laakiin waxaa weeye nin walbaba waa hiddi hoobay iyo maaragtay walaaqasho ma fahamta cilada labaad ee jirta ayaa waxay tahay markii hore alla ilahay embagaasi noogu sameynayay ama ilaahda cartaba ayaa waxa la sameeyay wax la yiraahdo awoodii oo la isugu daray ila sida very waxa loo baahan yahay ama organization business organization ha ahaado ama any type of organization or institution ha ahaado waxa loo baahan yahay inuu jiro hogaamiye iyo dad uu boss u yahay waa la helaa haddii laakiin la helo la sameeyo maxay raahdaa laba nin oo siman ama iska soo dhow ama wax isku qabsan karta oo aan uusan jirin go'aan ka ugu dambeeyo looga dambeeyo uusan jirin waxyaalo fara badan qasmay dadkana moogta waa in la fiiriyo xitaa maaragtay marka fiiriyo sunnada fil koon salaadaha kala waxa loo sameeyay hal imaam oo salaada markuu rukuuc la rukuuc markuu sujuudo guriga waxa leeyahay ninka maaragtay rijaal qawaamun ala nisaa oo ninkii maaragtay inuu reerkii looga dambeeyo wax la mid ah sidaas la mid ah waxa loo baahan yahay dawladda guud ahaan marka fiiriso ama waxa looga dambeeyo waxa jiro dawlad madaxweynuhu awood u leeyahay iyo dawladda madaxweynaha iska ceremonial u yahay ama iska magac iska dheh awood u leeyahay prime minister annaga marka waxaad u malaysaa in noogu tala galay labadii dhinac inaan midna la marsiinin oo labadii awood la isugu baro madaxweynuhu waa madaxweyne prime minister waa madaxweyne ama prime minister waa prime minister madaxweynuhu waa prime minister hadba sida awoodaha dawladaha oranto kale maadaama marka isku baraxa uu yimi haddee nin boss ah iyo nin boss loo yahay meesha uusan jirin waxay imaanaysa markaa isku dhac fara badan ilaa nin walba asaab wuxuu malay ana amiir wa anta amiir madaladi suuq al-himar tii waay marka taa marka problemka ka mid tahay tan ugu sii qatarsan marka ayaa waxay tahay waxaa jira wax la yiraahdo divide and rule wadankan waxa waaye 20 sano iskii muusan isaga burbursanay dadkan wadankan in fara badan ayaa waxa lagu bixiyay juhdi dhaqaale iyo fikir fara badan in ma aragtay wadanka uu burburo uu ka sii daro dad ayaa wadankan waxay ku cunaan billions of dollars malaayiin ummadda Soomaaliya loogu talagalay ayaa Nairobi ana soo dhaafay oo ma aragtay 5 star hotels ku yaala Nairobi ku cunaan 20 sano ee wadankan burbursanaan ay ku cunayeen haddii wadanka uu saa u sii burbursanaado oo shaafalataysiga oo isaga jirana ay u muuqato inay ku sii cunayaan marka si marka taa aan looga bixin waa in la helaa madax la kala jiidanayo ee la leeyahay مثلا hebel waxaa wata Ethiopia wata hebel waxaa wada ma aragtay other international community wata hebel waxaas wata iyo wax la mid ah European Union wata Mareykan wata iyo wax la mid nasiib darada jirta waxay tahay marka meesha wadamada qaarkood alla yahay qofkii lagu qabto in uu ma aragtay wadan kale u shaqeynayo dawlad kale wadamada dariska ka soo qabay Ethiopia wax la mid wadamada qaarkood qofka waa dilay
laakiin sidar anaga waxay maraysaa in nidaam siyaasi weyn uu banaanka la soo istaago maaragtay aniga international community ay wata aniga waxay wata Ethiopia wata aniga Kenya wata aniga waxay wata haddii aan intaas aan ku sii talaxtayna ama ku dheeraan siyaasadda Soomaaliya oo in muddahay xaasanaana ku jirtay waxaa muuqata bisha Agoosto 20-keedina dhici doonto doorashada madaxtinimo ee dalka Soomaaliya sida warbaahinta caalamka ku jirtana doorashada wax u badan aqoon-yahano dibadda ka yimid isleedahay aqoon-yahanada naftigooda ayaa fahmay in la joogo xilligoodii shacabkuna waxay fahmeen iyaguna in markan loo baahan yahay dhalinyaro macnaha marka la yiraahdo firfircoon oo dalkan dagaalku iyo rafaadka iyo abaartu ragaadisay ka saara marka doorkiini ayaa la joogaa misleedahay oo doorkii kale ee odayaashii iyo dadka intaas xukumayay dalka doorkoodii ugu dhamaadaba oo doorkii dhalinyarada ayaa iminka dhalinyaraduna ay fahmeen shacabkiina ay fahmeen halkaasna la fili karo doorashada kadib madaxda markii dowladda la unko oo wax walba lagu guuleysto in la heli karo wada shaqeyn madaxda ka dhaxaysa dalkii oo si wanaagsan loo maamulo faragelintan shisheeye inay ka baxaan waxyaabahaas oo kale inay sii hagaagayaan oo mustaqbalka la filayo dowlad hagaagsan iyo dal sida hadda uu marayo si kasii fiican wallahi waa sida la filayo waa sida ku rajo weynahay waa sida ay u badan tahay biidn illaahi tacaala waxaan ku leeyahay in aan helno maxaa yeelay aayadaha ilaahay ayaa waxay leeyihiin laa taqnatuu min raxmatillah aayad kale waxay leedahay laa ya'asu min ruuxi illahi alqawmu alkaafiruun marka in wanaag aan gaarno oo niyad wanaagga iyo optimismka aan muujinno waxay iimaankeenna iyo valuegeena islaamka ay ka mid tahay marka waa rajine waxaa laakiin haddana la fiiriyaa ifafaalaha marka aad fiiriso sida maanta qurba joogii ay waddanka dib ugu noqonayaan nabadda yar ee soo ifaysa maanta waddankii maaragtay dhismayaashii hadda ka bilowday iyo wax la mid ah iyo maaragtay sida siyaasaddeena isu beddeshay marka hore hogaami kooxeedyo iyo niman margiyo un taagaya ee aan u diyaarsanayn hoggaan dowladdan iyo ummad masiirkeeda marka waa jawiga ayaa isbedelaya hadda waxaa bilaabanaya heerkii aqoon-yahanadii xaqiiqdii ay garwaaqsadeen in aysan macquul ahayn inay bannaanka iska joogaan yiraahdaan siyaasad waa inaan xoolihii qaranka ama xoolo xaaraana cunno ayay keenaysaa dhiig islaam inaan faraha la gelin keenaysaa marka siyaasad aniga ma galayay wixii galaya ha galo meeshii ay dhihi jireen shalay maanta waxay garwaaqsadeen intaa ay khalad tahay maxaa yeelay marka adigii waxbartay experiencega lahaa quality alleyl hoggaan lahaa ee waddanka ummadda masiirkooda qaban lahaa aad ka orodo booska waxaad u banaynaysaa marka nin aan mudnayn kii ma aragtay alleyl wax dhiigacabka wax burburinayay wax dhacayay wax dilayay ayaad u banaynaysaa marka garwaaqsiga marka aqoon-yahanada ay garwaaqsadeen iyo fursadda hadda la siiyay maalan dowladdii tayo oo kale oo ay u badnaan dad xaqiiqda wada dhisan oo qualified ah iyo ma aragtay hadda dowladaha hadda ka dambe hadda waxaa wax lagu faan xaqiiqdii in ra-iisul wasaaraha allena maanta la leeyahay wuxuu ka soo baxay Harvard University oo ah xaqiiqdii jaamacadda adduunka jaamacadaha ugu qatarsan adduunka haddaysan bahay mid ugu qatarsan iyo hadda musharaxiinta markaa fiiriso dadka kaatiraha PhD holders ah ayaa musharaxiinta ka mid ah iyo rag professor ah oo 20 years above 20 years jaamacada soo dhigayay marka xaqiiqdii waxaa la marayaa waqtigii ay dad aqoon leh wax hogaamin lahaayeen dadka aqoon-yahanada fursad la siin lahaa ama ay heli lahaayeen iyo waqtigii hadda da'yarta waddanku ay maaragtay siyaasadda iyo hoggaanka wax ka geli lahayn hadda oday 80 jir cimrigiisa soo dhammaystay inuu mar walba hortaagnaado waa waqtigii soo gabagowday ila tahay marka وهجاك دعوة ديال وحين سوقا نكونتي جبنجبدي برنامج كان ينوه لنا دور كأقوياء كصوماليات وكل يهدي بديس كدلكا سؤال شو قدام بيسام كويدين يصير عبد البقر واحد تهاي ما دام بس صوص عطاء ودع دون تدور شد عصب أي دلك جليو إذا ما كاسنا مشرحين فربنا نسكسو تاجين حلك مدحتنيمو محط كل دار من الحياة مشرحين تصدوني إن قبطان أما مجراها يو قبطان حلكا أما الدولة الصومالية إلى فيلا بيشا أغسطس لبعتن كذا إني قرأت. حقيقي وسؤال أديت وقيمة بدن ومهمة وحنا كل دردان من لها دولار هواي وحي مدح إن شاء الله تعالى أنه قندونا كي نسيب الصومالي يكون بوليستو ودن
دولة سنة بربرسانا ودن دب يدباتو إن كفلا سوارك وأنا سبتنا مركا هدي رجع قاركود كرهدين الماشى إن معن بمدى عمر لها أما كرهدين يعني العقد دي كده يسوق إن أي ماشى ودونتان وحندي لها وحين سوريا ومد دأذي يوحي المستقبل كيدد كودي وحبران لها أي بدا معه بقوق ومنس اللي هي يجو ما تدينا ليبيا أسي بدكسي بدبي أي كنا معلن دينا يمن أي معه بقونا معنا يان سعرها ليبيا هالشيء ومد سا ودا معنا يسا أي مستقبل كودي أيوه ذا كترين توده يو ودن الله يله كنا قاعدة كفر هان إنه أسميان أي سويس هالسورية لأن يرى حد عدد لحين أو أدي أدوتها بدن حبسية دي دون كمال كسر بجرة إن أيتين كودي مستقبل كودي كفكرة إن كنا حان سيد كنا حيل هايين أولاد أي قال لو مدة المسؤول كنا قنايا المجعودة آخرين إلهي ولو الدين يهدي إلهي هذا وواحد مدة وقتين وحسوقية إني كيف كيران الضمير الصومالي إنما يودنيد الله يكون هان تهاي وشقيان ودمقدان مدة الصوماليات يقربها قوة تبعليسا المهي قاركود الجانجس كراعين اللي بلين محاير هذا جانجس كلا نوع يكون كلا بلين أيجا إسلامي سيدا ما تميل فرق بركة عليه iyo islaamaha ilmihii laga qaadanaya gaalada ay maartay gacantooda galiyay wax la mid ah in mustaqbalkoodii ay ayahoodii ka taliyaan wadan alle ku si nabad u noolaan karaan ay u sameeyaan ayaa sugaysa waxa sugaya ummadda gudaha ku jirta maartay source of income aan lahayn maartay dhaqaale iyo beeri iyo wax kale laga burburiyay 20 sano ku jira dil iyo dhac iyo kufsi iyo dhiig daadanaya inay alla ilahay ay taariikh sameeyaan oo ay noqdaan dadkii ummadda intaasoo dhibaatada ka bixiyay waxaa sugaya inay wax ka bedelaan sumcadda ama image-ka ummaddeena loo sameeyo ee media har iyo habeen la leeyahay marka magaca Soomaali la sheego ee dadka aan Soomaalida ahayn ajaanibta ay ku soo dhacayso burbur iyo burcadbadeed iyo qarax iyo miino iyo waxa loo joogay ku soo dhacayso sumcadda iyo image-ka 20 sano media uu waday wax ka bedelitaankeeda ayaa xaqiiqdii sugaysa waxaa sugaya in ummadda Soomaaliyeed ka wadan ahaan ka qaran ahaan 20 sano meesha caalamku uu horumar higsanayay dib u dhacay alla in ay 20 ka sano soo kaban ee alla aysan waqti dambe aysan naga sii luminin ayaa sugaysa waxaa sugaya in ay difaacaan oo si dadnimo iyo wadaniyad iyo qiirada ku jirta in ay u difaacaan khayraadka wadankeena ee maalin kasta la leeyahay badiya sun lagu shubay waliba kuwa ugu halsana nuclear-ka lagu shubay la leeyahay waxa la xaalfinaya maxaa yiraahdaa waxa la wixbadeena ku jiray oo cid ka difaacanaysa aysan jirin la leeyahay ma aragtay wadankeena ayaa maalin walba ciidanka iska soo galaya diyaarada iska duqeynaya ma aragtay maras iyo ma aragtay hooyi caruur ku duqeynaya حتى عن مرقات كود حب برميشنا قدران اللي هي وايشين وحلم لكن مرقة هراء قاركود يسوع برميش مسوقين لو أنا بعد طبعا إنه حباش شيء وضمبين وحنيه لها قفك إنه مدح النقضاء وكرسي سكفة اليوم مهمة وحمهم كأه وقفك إنه كتب الليس إنه كتب التاريخ وحنس الدرعة وحجرتي مدح لو تصل يكبر وطن كان حكومي يسي waxyaalo fara badan oo wanaag ka qabtaan waxyaalo fara badan xaqiiqdii inaga haliyay wadankan maanta aan joogno ee aad azhariyo ugu wareysanayso ninba wuxuu hayay 12 sano Dr. Mahathir Mohamad 20 sano wadankan asigoo alla ilahay umadiisa ay door ku jirto umadiisa ay macaawin iyo gaaji iyo wax la mid ah ay u rafaadayaan ay xukun qabtay wuxuu ka bedelay wadankiisii wadan dhaqaalihiisu ku tiirsanaa agriculture maanta uu ka dhigo wadan warshado iyo wax soo saar leh oo baabuurtiisa iyo wax walba ayaga soo saaranaya wuxuu ka shaqeeyay in ayagoo kala diin ah kala midab ah kala maxaan ku leeyahay culture ah ila wadanka waxa ku nool Malay nimanka dadka la yiraahdo oo wadankaas iska leh Hindi iyo Chinese ayagoo intaas oo dhan kala duwan inay alla ilaahay ku wada noolaadaan nabad iyo baraare وعالم كل يراد ما أنت مليش ترول إيش اللي يراهدو ودلحيش لوسو ولا هذا هو جانا كشغل حدي من كله هلا
leadership sida u fikiraya u fikiraya inay alla taariikh ka tagaan sumcad ka tagaan baal dahaba taariikhdan ummadana ka galaan wax weyn la qaban karaa laakiin haddii ay noqoto afar maalin jooga afarto xabad ka qaado iyo maartay beri baan madaxweynaha ka noqday waxay noqonaysaa nasiib darintale waxaana rajaynaynaa in dadaalka maqlaan ummadda wax weyn ee la qabtan bilaay tawfiiq aad ayaad u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa ustaad cabdiqaadir maxamed cuthmaan cabdibaqar oo ka mid ah macallimiinta wax ka dhigay jaamacadda almadiina international university ee waddanka malaysia wuxuuna ustaadka maanta marti inoogu ahaa barnaamijkan gaarka aynu ku faaqidayno doorka aqoon-yahanka soomaaliyeed uu ku leeyahay dib u dhiska dalka daawadayaal barnaamijkan waxaa iska kaashada tv-ga caalamiga ee somali channel iyo website-ka caalamiga ama shabakada caalamiga ee regionews.com intaynu barnaamijkan oo kale dib hawada u kulmi doono waa bahdii barnaamijka oo isku duuban oo idinkaga tegaya amaana allah